gudoomiyaha guddida xuska qabanqaabada 18 May ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo amniga Cabdille Maxamed Carab iyo qaar kamid ah xubnaha wasiirada ah ee guddidaasi ayaa maanta kulan muhiim ah la yeeshay qaar kamid ah ururada bulshada rayidka ah ee ku sugan magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta waxaana ka soo qayb galay qaar kamid ah ururada bulshada. Ujeedka kulankan ayaa ahayd sidii loo dardargelin lahaa ka qayb galka ururada bulshada ee xuska maalinta qaran ee Soomaaliland ee 18 May. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in bulshada rayidka ay door muuqda ku yeeshaan u diyaargarowga iyo dabaaldegga munaasabadda 18 May iyadoo lagu dhiirigelinayo wada shaqaynta dawladda iyo ururada bulshada. Wariye Subeer Galeyd, CBA, magaalada Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarlii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121